Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan horeyna uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda amniga dowladda Jubbaland ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha hay'adda NISA ee gobolka Gado. Haddaba Cabdinuur magacaabistiisa maxaa xilligan ku soo beegay, muxuu ku soo kordhinayaa dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo waliba kooxda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo, maxaase faa'iido ah oo hadda fila Soomaaliya ugu jira oo ay maaragtay dana oo ay ka leedahay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan eegi doonaa oo aan ku falanqeyn doonaa ama ku lufa guri doonaa mowduucan gaarka ah ee aan ku eegayno magacaabista Cabdirashiid Janan. Marka hore si kooban haddii aan u kor istaagno, waa kuma Cabdirashiid Janan. Cabdirashiid Janan waa wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Jubbaland, waa siyaasi saameyn ku leh arrimaha gobolka Gado, waana nin gobolka Gado taariikh xun iyo mid wanaagsanba ku leh. Waxa uu ka mid ahaa dadkii soo maray ururada Islaamiga ah sida ururka Al-Ittixaad oo kale. Waxa uu ka mid ahaa oo kale dadkii inta badan gobolka Gado ka saaray ama ka xoreeyay ururka Al-Shabaab. Mararka qaar waxaa lagu tilmaamaa nin qabqablad deegaan ama dagaal ah oo degmooyinka qaar ee gobolka Gado si gaar ah gacanta ugu hayay, dad badanna dhibaatooyin ay maaragtay ka soo gaareen. Inta haddii aan kaga nimaadno waa kuma Cabdirashiid. Haddaba dad badani waxay isweydiinayaan maxaa xilligan loo magacaabay Cabdirashiid Janan inuu noqdo taliyaha hay'adda nabad sugidda ee gobolka Gado. Maxay ku doorteen kooxda Xasan Sheekh Maxamuud? Kooxda Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay raadinayaan jidad badan oo ay dagaal siyaasadeed oo xooggan ay kula galaan dowladda Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, maadaama tallaabooyinkii hore ay qaadeen ay dowladda Jubbaland kaga itaal roonaatay dagaalka saaxadda siyaasadda iyo weliba midka foolka ahaa ee la wada galay. Markii ugu horeysay intii nala socota ama intii ogeydba, kooxda Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay markii ugu horeysay ay maleegeen in deegaanka Ras Kamboni ay ciidamo ay ku daabulaan oo halkaas ay isku dayeen inay ka soo galaan magaalada Kismaayo si loo burburiyo systemka iyo dowladnimada Jubbaland. Hase ahaatee taas waxa ka hortagtay Jubbaland oo qorsheysay iyadana in ay ciidanka halkiisa uusan soo dhaafin oo uu halkaa ku fashilmo. Hase ahaatee maalmo kadib Jubbaland ayaa dagaalkaas ku gacan sareysay, waxaana ogtihiin intiina badan wixii halkaasi ka dhacay oo dib uguma noqonayo. Sidoo kale meelaha la isku fara saaray waxaa ka mid ahay degmada Doolow ee gobolka Gado oo hadda Cabdirashiid Janan uu ka mid yahay dadka siyaasiyiinta ah degmadaasi ka soo jeeda. Halkaas waxaa isku fara saaray Jubbaland oo wasiirro badan iyo xildhibaano badan markaasi xilligaas ay halkaa kaga sugnaayeen iyo waliba koox taabacsanayd dowladda federaalka ee Soomaaliya, khaasatan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Degmada Doolow iyadana waa looga adkaaday. Waxaa jirtay in degmada Balad Xaawo maamulkii joogay iyadana ay laba u kala qaybiyeen oo iyadana lagu kala qaybsamay. Hase ahaatee Jubbaland ay dib ula wareegtay degmada Balad Xaawo oo hadda uu ku sugan yahay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan. Taasina waxay noqotay tallaabo kale oo Jubbaland ay kaga gacan sareysay marka la yiraahdo dhinaca galaangalka iyo siyaasadda ee gobolka Gado. Gobolka Gado hadda waxa ay dowladda federaalka ee Soomaaliya si toos ah gacanta ugu hayso. Waxaa ka jira degmada Garbaharey oo ah caasimadda gobolka Gado oo ay joogaan rag kooban oo taabacsan, iyo degmada Baardheere ee gobolka Gado oo iyadana Jubbaland ay ku dagaalantay laakiinse hadda ay joogaan koox taabacsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa. Degmooyinka kale ee gobolka Gado hadday tahay Ceelwaaq, Doolow, Luuq, Balad Xaawo intaba waxaa gacanta ku haysa Jubbaland. Dadka gobolka Gado degan intooda badan siyaasad ahaan waxay hadda ay raacsan yihiin madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo systemka dowladnimada ee Jubbaland. Haddaba si arrimahaasi maadaama looga adkaaday siyaasaddii gobolka, looga xoog roonaaday oo looga itaal roonaaday oo Jubbaland ay kaga gacan sareyso xitaa marka laga yimaado gobolka Gado,
jubbada hoose iska badda iyo raas kaambooniye gobolka Gedo maadaama lagaga itaal roon yahay siyaasad ahaan waxay hadda doonaysaa inay soo ceshato saameyntii siyaasadeed ee gobolka ay ku lahayd iyadoo markaasi soo maraysa dad deegaanka ka soo jeeda oo saameyn ku leh. Cabdirashiid Janan waxa uu ka mid yahay dadka saameynta gaarka ah ku leh gobolka Gedo maadaama uu ka mid ahaa mas'uuliyiinta dowladda Jubbaland ee muddada dheer ay soo wada shaqeynayeen madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Xasan Salaam. Midda labaad oo ay ku doorteen Cabdirashiid Janan waxay tahay inuu yahay nin ciidan oo dagaal maadaama uu yahay nin dagaalo badan soo maray haday tahay kala duwan soo galay. Taasina waa arinta kale oo sida gaarka ay ugu doorteen. Waxa kale oo ay ku doorteen baa la is dhihi karaa waa qofka kaliya oo maanta banaanka ka jooga system Jubbaland iyo dowladda federaalka ah oo gobolka la is dhihi karo waa la soo istaagi karaa inkastoo aan dhihi karo taageeradii hore iyo saameyntii hore ee uu gobolka ku lahaa maanta kuma laha oo dad badani ay og yihiin taariikhdiisa iyo dhibaatadii uu dad badan oo gobolka ka bida uu u geystay iyo intii wasiirka ahaa waxyaabihii uu ka sameeyay ama gobolka uu ku sameeyay intaba. Kooxda Xasan Sheekh Maxamuud waxaad moodaa markaan inay noqdeen lax gowracan geedka ma waabato oo ay qofkii arkaanba inuu wax keeni karaba in ay isku qaadayaan oo ay ku cararayaan. Dadka markii horeba ay horay ka dafeen oo ay islahaayeen waa dad saameyn leh waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Shimbir oo ahaa guddoomiyaha hore ee gobolka Gedo oo runtii markii horeba ay gacanta ay ku dhigeen hase ahaatee sidii rabeen iyo saameyntii iyagu markii eegayeen ay ka waayeen saameyn yeelanin iyo galaangalkii siyaasadeed ee ay ka rabeen. Hase ahaatee waa arki doonaa maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo aadan isagana bal Cabdirashiid Janan waxa uu soo kordhiyo iyo waxa uu ka bedelo siyaasadda gobolka Gedo. Waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhageystayaal mowduucii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay magacaabista dowladda federaalka Soomaaliya ee magacawday Cabdirashiid Janan in uu noqdo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee gobolka Gedo oo uu magacaabay ninka lagu magacaabo Mahad Salaad oo ah taliyaha hay'adda. Fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir bartaan ku leenahay YouTube-ka Rasmi Radio kalana soco xogihii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Barnaamijka noo like garee oo noo share garee channel-kana subscribe noo saar si uu dad badan u gaaro. Mahadsanidin.